duqaydaan idiin naho ducaanu idiin sidnaa habaar ha dooranina duqaydaan idiin naho ducaanu idiin sidnaa habaar ha dooranina labeenta abwaanada Somaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta dhaqanka Hargeysa ayaa baaq u diray beelaha walaalaha ah ee dirirta ku dhex martay deegaanada Ceelaf Weyn iyagoo ugu baaqay in si wada jira ay u ilaashadaan nabadda. wariye Maxamed Cali Weji oo kamid ah gudida abwaanada ayaa ka warbixiyay ujeedada shirkani uu daaran yahay. halkan odayaasha ka muuqda waa qaar kamid ah ururka wada garanaysaan ee ururka abwaanada Somaliland ee Mustambeed waxaana ururka odayaashiisa had jeer shaashadahan ka aragtaan marka arrin u baahan in oday ka hadlo ay soo hormarto ilaahay dhibaatooyinka ay naga hayo waxay mushkiladeen dalka ku yimaadana ilaahay noo kala fogeeyay laakiin bini'aadamku sidiisaba waa ka caakufaa dal kastoo adduunkaana dal ku wada seexdaa sanadkoo dhan nabad ma jiro iyo barwaaqo abaal baad timaadba colaad baad timaadba caafimaad baa yimaadba horumar baa yimaadba ilaahay inta macaan haynoo badiyo. geesta kale waxa maahmaahayo iyo maansa murtiyeed kula hadlay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya Ceelaf Weyn abwaan aadan tarabi iyo abwaan muuse cali faruur. ma gelayo hordhac weeyaan waxa aan maanta tirinayaa haddaad duul wada dhasho dab qura wada shidanayo digsina wax ku wada cuno deegaan aan kala lahayn dadkana ay isugu xigtaan maxaa isku kiin dire dacarta isu kiin marshee la isugu kiin daw gale dugaagga iskaga kiin dhige ee kala doonaysaan ma dabadda isugu baxdeen ma duurka isu wada gasheen ma dahabaa kala qodanaysaan ma darajaa kala xidhanaysaan ma duruuf qasabaa jirto dagaalama idinku tidhi raxmaddii idin diidayo daruurihii idinka gure dunuubtaa galabsateen miyaydan sharci idin dabriyo stooriya xeer lahayn. waxaan leedahay walaalayaal waxbaa dhacay hadda ceere waxaa la yidhi soomaalidu tidhahaa caanadaataba dabadood la qabay baa la yidhi waxaan leenahay waxaanu lahay odayaashii Mustambeed oo calool xumo ka haysa halkaa waxa ka dhacay iyo darar weyne waxa ka dhacay walaalayaal waxa la yidhi hilib idaad iyo hadal sokeeyaba waa la qaboojiyaa hilib idaad iyo hadal sokeeyaba waa la qaboojiyaa waxa la yidhi dagaal ku degdegin mid sokeeyana haba ku darin waxa la yidhi gurigii istilaa gobolkiisu bataa walaalayaal miyaydaan fikirahayn 10 geed wax kaa kiciyo godob sokeeyaa jira baa la yidhi godob sokeeyay maxaad leedahay la yidhi waxaan leeyahay guurta aan seexan garashayda iyo gocasho dambaan leeyahay bay tiri maxaa kalaad leedahay la yidhi godob sokeeyaa agoon badata oday gobolada iyo urkutabad la dambaan leeyahay bay tiri waxaan leeyahay bay tiri godob sokeeye waxaan leeyahay bay tiri reer maad oo muruxu baxa ila waa la kala qaaya xooli waa laga durkaya rag madaxle oo maraka dhiga war meesha hebel iyo miyaanay joogin la yidhaaho maranteediya maydan bada iyo muruga dambe leedalena warta maxaynu isku dilay maskaxdu waa inay shaqaysaa oo taladu aynu ku daraa in maskaxdu inoo shaqayso aynu ilaahay ka baqanno maanta ka wax dila kibir wax ku dila in islaam dila dee ilaahay baa halku tagaya inoo sheegay inuu herinaar yahay. gudoomiyaha gudida abwaanada Somaliland Maxamed Aadan Dacar ayaa sidoo kale fariin u diray beelaha walaalaha ah ee dirirta ku dhex martay deegaanada Ceelaf Weyn. waxaan u maleynayaa haddii waano iyo hadal af wax laga yidhaahdo wax lagu qaadanayo horena waa la idin yidhi intaasuna idinku filan baan u maleynayaa tusaale waayo ruuxna walaalkii ama ubadkiisa waxba kalma la xajeclaysto maanta oo kale inta idinku is haysataan rag ma seexan waxba cunin meel kala tegin intaas ku walaacayay oo habeenkii oo dhan isu rogrogayay maxay isu rogrogayaan waa jirkiisii waa dhiiggiisii waa naftiisii waa gurigiisii inta is haysataa waa maradaadu kugu gubatay
markaa waxaanu leenahay walaalayaal inkaara naga shaqaysanina odayaashii abwaaniintiinii dalkaanunay inkaara shaqaysanina nin walowba naga nax oo ubadkaaga u nax oo dalka u nax oo diinta ilaahay eeg ka jooga oo dagaalka mar dambe yaanaan maqlinay halkaa ku joojiya annagu intaanu ciidan idiin soo dirro xoog aanu idinku qabqabanno ma haynee waanu idinka naxaynaa man maqla shirkoodan jaraa'ida abwaanada ayaa ku soo beegmaya iyadoo colaada ka socdaan deegaanada Ceelaf Weyn iyo Darar Weyne waa Axmed Saki Ibrahim Maxamuud Sam News TV magaalada Hargeysa.